waxaan ka soo degay Istanbul Airport hadday ku siiyaan free hotel dhibka kaa qabsanaya sidaa ku tegi lahayd hotelka saa la socotaan hotelka iyo airportka ama hotelada ama magaalada meesha ku taalla airportka aad u kala fog yihiin marka maanta waxaan rabaa bal inaan idin tuso waxa ina dhex mari doona markii hadda ugu dambeysay ma duubin laakiin runtii dhib badan aan kala kulmay ilaa markii dambe aan ku qasbanaaday in anigu isdabaro marka bal muuqaalkan la socdo waxa ina kala qabsan doono annaga iyo ayaga insha Allah taala. It will work. Otherwise, you wait 2 hours, 50 people together, they go one by one, they go 50 kilometers ahead. You waste at least 3-4 hours. I will send you right now. In 20 minutes later, you will be in the hotel. And I pick up noontime from hotel and back to airport. Easy. But 120 is a bit expensive though. You pay cash? Cash? It's big expensive. How much If you is pay it? cash, I make it 100. That because- means I'm just Brother, I'm just only paying taxi. for the hotel. Brother, I am charging only taxi service. And it was One way. around this time? This is two-way, brother. We will drop you and pick you up from hotel. This is two-way. And also nearby hotel. And open for breakfast. Understand? Yeah, and clean, safe places. And you guys work with the Turkish airline, right? I mean, of course, yeah, but taxi. We give you taxi. This is because shuttle free. Yeah, Okay. right. Okay. Thank you, We sir. don't have a shuttle. Thank I you. love your information, man. I'll be back. Yeah. Hi, boss. I'll be back. I promise I'll be back. Yeah, I'll be back. I'll be back. Let me check what they told me to check. They told me to check over there. Huh? They told me to go under over there somewhere. Wow, this is overwhelming information, to be honest with you guys. Because look, waxay ku leeyihiin mataqaanaa markaad diyaaradda goosanaysa ticketka free hotel wax walba lagu siinayaa free transportation lagu siinayaa markaad ka soo degtid airportkana waxaana dhacaya ma fahanteen marka we will see waxaan rabaa adinkoo dee dhibkaan oo kale inaydan marin anigu haddaan ka bixinayo hotel $120 uu sheegaya ninkan maxaa hotel isaga qaadan waa keligay aniga aan yani qabsanayo ma fahant marka meeshaan waa meesha hadartaan ay ii soo direen wala aan fiiriyo insha Allah taala dad badan baa fadhiya mar rabo inay kaamirada ka cararaan marka haddii macquul noqdo duuba insha Allah meeshaan waa meesha halkaan ay imaanaysa marka diyaaradda soo degtay. Did you make your reservation? Last time I did, but this time they didn't allow me because I went to Jeddah. Yeah. But someone was saying that if I did last time, I don't need to do again, right? Because they gave me Ersin Hotel last time. Yeah. Reservation or different? No Okay. problem. Okay. Did you make your reservation or not? This time, last time I did, yes, Ersin Hotel. I understand. If you need again, I have to do it again. yes. Okay. But now So, here layover program. I cannot make reservation here. okay. You should make reservation. Go to your side, your hotel, if you have. If you don't have, I am sorry, I cannot help you. Number 4. Sir, we are busy. Desk, contact customer service. There is a rule. Okay. Rules is different. Stop over the rules is different. Sorry. You understand? Okay. Here layover program. We cannot change. So there's no free hotel. They just lied when I was getting the ticket, basically. No lift. I can't go by lift. Sorry. There is elevator or escalator. No problem. Elevator qaado. Sir, I check system. Yes, sir. 26 February reservation. There is no new reservation. Okay. Make new reservation before, not now. So Umrah visa? I do have Umrah visa, yes. Umrah visa? Yeah, you want to see? Yeah? Umrah visa show me. Sorry? Show me all Umrah visa. Yeah, I can show you. Where is Umrah? Where is Umrah? Umrah. Tourism. I understand. Yeah. But my system, there Yeah. is no Umrah for my system. Your Oh, okay. Vienna. And also this one. Yeah. If here, no problem, I can help. But Okay. if this is also It's Umrah, yeah. If here, if my system there is no comment, we cannot help you. Sorry. Oh, wow. I have meeting now. Sorry, if you want, you can join the tour tomorrow for tour Istanbul. Visit to Istanbul. Wow. You guys see what's happening, right? Okay.
Okay. Akhyar oo joodaan wax meesha ka dhacaya waxa isku soo lugoynina Turkish hadii aad stop over ay ku dhahan hotel Firiyan ku siinayna marka halkan imaadid waxaana kugu dhici doona wax loo dul qaadan karana ma fahanti marka magaalada haddaan aadid waxa waaye ma saaxanaysid subax aroortii haddana soo kalaysa marka it's really crazy in aad hadda hotel inta wax raadsatid aad ma taqaana tiraahdid Allah ilaahay hotel aswaan ma taqaana kareysanaya because waqti badan ay ka qaadanaysaa inta hotelka si tagaysid soo socotid waxa laga yaabaa inay kugu qaadato maybe 4 or 5 hours hadhow marka xagga tagta soo laabanaysidna waa yani another maybe 1 hour amal ay qaadanaysaa because airportku ka fog yahay meesha uu ku yaalo magaalada meesha ku taal aad uga fog yahay marka bal waa fikri doona insha Allah taala haddaan ugu hotel ijaaranayo iyo haddii kale ninkii hore ii sheegay haddaan ku laabanayo iyo in kale insha Allah taala bal xaaladdan qiimeyn doona waa idinku soo warcelin doona insha Allah taala. But if you're Turkish airline and they Turkish airline you got the same information, right? Yeah. If you want, you should contact the Wita. Through phone or through email? Email. 2 or 3, it doesn't matter. Wow, really bad experience. Turkish airline markaan ku laabtay waxay ku leeyihiin stop overkaada waa sax inaan ku siino hotel laakiin kulaha markaa jidda ka soo bixaysay ayaa la rabay inaad buugareysatid marka hadda kuma siin karnay leeyihiin ma taqaana hotel kuma siinin waa in adigu hotel aad qabsatid kulaha sababtoo ah ina buugareysatay ahayd last time markii aan imid halkan waan buugareystay oo anigoo reservation-kayga haystaan halkan imaaday hadda laakiin way iga diideen markii aan damcay inaan reservation sameeyo hotelka systemka dhanaa isxiray waxay ku leeyihiin markaad airportka tagtid ayaa hotel lagu siin doonaa marka insha Allah bal waa arkaynaa hadda waxaan isku dayayaa kuwa meelahan mataqaana hoteelada ku leh abba kuwa meelahan hoteelada ku mataqaana ayaan isku dayi doonaa inaan mataqaana aan hotel ka qabsado oo aan hotel magaalada ku dhex yaalo aan tago insha Allah taala marka dhibaatada igu ma hayso laakiin waxaan rabaa idinku bal inaad ogaataan arrinta meesha ka jirta dhibaatada meesha ka jirta inaad ogaataan aan rabaa anigu hadda hotel iska qabsan karaa wax muhiim ma aha laakiin qof waayeel laga yaabaa hadda inuu inta waxaan buugareysto uu sidaa meesha ku yimaado oo hadhow dhibaatadaas kala kulmo ma garateen daal kadib waxaan imid hotelkan waan isleeyahay how you doing marka hadda checking-kaan samayn doona waana idinku soo warcelin doona insha Allah taala hadan hello how you doing You have reservation. I do waxaan hadda inkasoo salaamayaa magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga waxaan hadda imaado hotelkan waxaa la dhahaa laakiin magaciisa waxaan maleynayaa in la yiraahdo Erasin Hotel wuxuu ka mid yahay hoteelada ugu waaweyn magaalada ku yaala ama ugu mataqaana macquulsan I think inuu yahay 5-star hotel waxaan soo degay saacadda markay ahayd 6 meelahaas laakiin waqti badan ay u qaadatay inaan imaado hotelkan sababtoo transportation-ka wuxuu yahay really I have a question. Do you guys have free shuttle from the airport to hotel? No free shuttle? We don't have shuttle service. Oh. If you want taxi, Yeah. you will say I will call, okay? Please, yeah. Because now I asked too many shuttle because they have a Turkish airline and they said no, so I have to take the bus. Okay, if you want taxi, Okay, I'll talk to you tomorrow. you call, Okay. call the reception. And then you give me taxi. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Yeah, so marka basaska banaanka taagnaa oo ay ku qoran tahay Turkish Airline free shuttle ku qoran markaan weydiiyeen waxay ugu dhaheen kuma qaadeen marka aad iyo aad runta ugu faa. Yes sir. Okay. Yeah. But it was crazy arrival, you know, it was hectic because of the bus and but it's okay. You can rest now, okay? You can Sorry? rest in the room. I can't wait to see my room and rest. Bring you in the restaurant, okay? Okay, so I can come down and eat.
Okay, thank you very much. It was nice welcome by you guys, so I appreciate that. Email and signature. Sorry, signature? Phone number, email, and bank here. Oh, okay. That's it. See My you brother. tomorrow. Okay. Inshallah tomorrow. Because I was trying to see tomorrow morning Blue Mosque. Inshallah. Okay. Yeah, is it very close? No, yeah, you can go by train. Okay. Oh, by train. Okay. Do distance from here to Okay. Blue Mosque 20 minutes. Oh, by train. By train. Okay. So the train is leave from here. Train is nearby. Train Oh, stops okay. there. Okay, cool. Okay. If you want, can you comment right? Google and TripAdvisor. Sorry? If you want, can you comment right for us? Oh yeah, yeah. Google. I can do that when I get to my hotel. Okay, no, you can scan. Okay. Okay, camera. Is Your this- camera with your camera. Oh, my camera? This is phone camera. I can keep it. I can keep it to give you a review. Okay, okay. Review. Yes, I'm 100%. Awesome. Both of you. And what about the names? Melissa, Melissa and Emre. Okay, I will remember that. There you go. Arkadaş geldi. Yardımcı oldu sana. Teşekkür ediyoruz sağ olsun. Biz Somali arkadaşlarımızı seviyoruz. iyi istirahatler, iyi konaklamalar İyi dileriz. saatler diyoruz kendisine. Her zaman bekleriz. Teşekkür ediyoruz ona. Absolutely. Wow, that's very good. Allah umresini kabul etsin. Inshallah. Thank you. Your room case. Okay. Room number 519. 519. And then which side is it? This side? Put Oh, he will let me. Thank you guys. Thank you, Melissa. Thank you, Emre. phone number 6, okay? Number 6. Okay, thank you so much. Tomorrow. Welcome, how are you? Yeah, see you tomorrow, guys. Yeah. I will show your room. Okay, boss. Thank you. Okay. Marka runtii really waxa waaye waa soo daalnay muddaa meesha aan ku soo jiray mataqaanaa safarka aad iyo aad u dheeraa dadkaana waxaa waaye waa luqadda ingiriiska aad ugu dhib ku ah marka hadda waxaan samaynaynaa hotelka qolkaan tegi doonaa insha allah tacaala andana waan isku soo laabanayna biidn illah. Nice Turkish bed. All of them -1 floor. 10 a.m. to 10 p.m. walking. Massage extra and other activities including your reservation. Lobby floor for reception, restaurant, lunch. Breakfast time 7 till 10:30. Okay. Wow. Overs restaurant 10 a.m. to 10 p.m. working also. Uh-huh. But room service 7:24 working from. Oh, 7:24 all day. Okay, good. Yeah, hotel hotel fiican aan qabsaday. So this is a 5-star hotel, huh? This is yes. 5-star hotel, yeah? Okay, that's good. That's what they said online. Okay. Hadda qolkiiba sii socdaa. Bismillah, aragna marka. Wow, thank you. You're welcome. Come in. Wow. Okay. And let me introduce my room. Okay. That salads are free on the table. Water, coffee, can is free. They are forget probably water. You Okay. have to water for all day because. Okay. Oh, there's no water here now. Yeah. Like, are they gonna bring it? When you call reception, we will send you. Okay. Okay, Reception number please. 6. Yes, yeah. Air conditioner all here. Mm-hmm. For connect Wi-Fi, your birthday and room number. It was crazy. Thank you so much. Nice to meet you. Tomorrow I'll take care of you. Hassan. Me too, Recep. What is Nice it? to meet you, Recep. Oh, Rajab. Yeah. Rajab, like the president. Yes. Same. Thank you, man. I will see you tomorrow. Yeah? See you. Bye. Thank you, my brother. Yeah. waxaan rabaa marka inaan idin siiyo hotel tour haddaan soo gala dabcan sidaa ujeedaan hotelka magaciisa waa kan inaa aragteen aan rajeynayaa waxaa la yihahdaa Erison ismaac malo arka mahubo dalkaa damay aan ku celiyo okay marka hotel markaan soo geshidba kolley qolka isiiyaan qol single waaye haddaan soo gala alaabta dhigtay boorso yartay ay wataa nadaafadiisa aad iyo aad runtii uga helay aad iyo aad ay nadaafadiisa u fiican tahay hotelkan reviewgiisa aad u fiican yahay waa 5-star hotel amenities fara badan waa uu leeyahay oo ay ka mid yihiin
swimming pool iyo restaurantyo casri ah. Hoteelada meelaha laga fiiriyo oo ugu horeeya waxaa ka mid ah markii lasoo galo musqulaha ka mid ah. haddii musqushiisa ay well organized tahay inta badan hoteelku wuxuu u badan yahay inuu asna hagaagsan yahay. marka kule sida muuqato hoteelada ugu casrisan magaalada Istanbul ku yaala reviewgiisa markaan fiiriyay markaan waxaa ku yaala waxyaabihiisa basic ah closetkii safekii ugu talagalay baasaboorka waxayna gashatid. halkan waxaa saaranaysaa boorsadaada ayaa saaranaysaa qaanadaas yarta ah ugu taala TV-gaadii. that's it wax kaloo meesha ku yaala malaha kan oo kii ugu talagalay halkan space inaad ku shaqayso loogu talagalay email yaro iska nasanaysid iyo sariirtan double-ka ah queen I think queen sanitan king ma king way ka yartay xoogaa. marka magaca hoteelka aqaan halkan aan furi karno in kale balkoon yar uu leeyahay aan fiirin. hoteelka magaciisa waxaa la yiraahdaa Erisin Hotel ayaa la yiraahdaa. iska xirno meeshan. okay marka hoteelada ugu casrisan magaalada Istanbul sida idin muuqato hadda ka Blue Mosque igama foga aad ugu dhow yahay. meelaha Soomaalida ay maqaayadaha ku leeyihiin kama foga. Holiday Inn ayaa iga soo horjeeda oo jeeda hotel Holiday Inn. waxaan damcay mar inaan isaga qabsado laakiin kana xogaa dadka i amaaneen. marka walaalkan Xasan Sunni oo idinka soo salaamay magaalada Istanbul Turkiga. berito insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan magaalada meel ka mid ah tago oo aan muuqaal ka soo diyaariyo insha Allah haddii soo gasho. marka hadda waa waqti dambe oo hadda hoteelka aan imidada waa 9:00 fiidnimo weeyaan. waa dareemi kartaan qof maanta safar soo ahaa oo haddana markuu hoteelkii muuqaal duubay waa iska dareemi kartaa. marka insha Allah tacaala waa inuu berit haddii alidno muuqaal dhowr muuqaalan isku dayi doonaa magaalada haddii soo gasho inaan idinkaga soo gudbiyo insha Allah rahmaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maca salaama. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta waan salaamayaa meel kastoo aad joogtaan. waa maalin jimco ah saacaddu waa 9:00 subaxnimo. waxaan idinka soo salaamayaa Istanbul magaalada Istanbul ayaan kasoo salaamayaa. Soomaaliya gobolka ka soo jeeda. Soomaaliya gobolo badan ma kasoo jeedaa federation. horta adin taas dintaada waxaa inaa internetka gashatid ilaa isyaalana laga yaabaa laga yaabaa ha gobolkee ka soo jeeda gasha muku hagaay ay soo gudbo no frontaay xaafadda Soomaalidu way u badan tahay Soomaa saad tareenka wadiga wadaga laakiin saada tareenka wadiga adiga kaliya ku arkay qof kale Soomaali ma arag. Soomaalida ku yaraatay meeshan ayuu isku soo laabanayna khiyaaray meeshan u socday markaan tago isku dayayaa inaad dib ugu soo laabato insha Allah taala ninkan odaga iskala sheekaysanaa intaas